السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada idinku talagalnay waa barnaamijkeeni labaad maanta waa Khamiis taariikhduna waxay ku beegan tahay 23 bisha Abriil sanadka 2026 barnaamijkeena labaad waxaynu ku soo gudbinaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay xaaladda gobolka Bariga Dhexe absida laga qabo Xuutiyiinta inay iyaguna xiraan Baabal Mandab oo si xoogaysanaysa iyo Mareykanka oo sheegay inay wada hadal la yeelan doonaan waxa uu ku tilmaamay Kuuriyada Waqooyi ee qaaradda Afrika si looga hortago Baabal Mandab haddaba Kuuriyada Waqooyi yaa laga wadaa tafaasiil ku saabsan sheekadaas ayaanu barnaamijka ku faahfaahin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu haynaa Trump oo u hanjabay doomaha yaryar ee dheereeya Iran ay leedahay ee loogu magac daray kaneecada badda Iran oo la sheegay inay bilaabayso inay qaado canshuuro maraakiibta ay doonayso inay ka gudbiso Hormuz iyo Xisbullah oo sheegtay inay soo riday mid ka mid ah diyaaradaha Israa'iil qodobadaas aynu barnaamijkeena labaad ku faahfaahinayna intaanu ku jirno waxay wararaya soo kordhay waan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adunkuna ma tagtaan kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa maalinimo Khamiis ah haddaba taariikhduna waa 23 Abriil haddaba barnaamijkan waxaynu ku faahfaahinaynaa akhbaaraadka iyo wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn warar xiisan ayaanu barnaamijka ku soo gudbin doonaa ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa Mareykanka oo dadaal iyo xusul duub ugu jira sidii uu ula heshiin lahaa waxa uu ku tilmaamay Kuuriyada Waqooyi ee qaaradda Afrika si looga hortago warar sheegaya in Xuutigu ay qorsheynayaan iyo Iran in la xiro Baabal Mandab taasoo noqonaysa gacan meeshii marin biyoodkii labaad ee la xiro ee muhiim ah ayay noqonaysaa haddaba Mareykanku maxay ka wadaan Kuuriyada Waqooyi ee Afrika Kuuriyada Waqooyi waa jeegaxiirka iyo raggiisa waxaa loo aaminsan yahay dad ka go'doonsan dunida inteeda kale oo cunug qabatayn sidii loogu waday la baabi'iyay oo iyaguna ay soo jeesteen oo waxba laga cuni waayay haddaba Kuuriyada Waqooyi ee Afrika maxay tahay Kuuriyada Waqooyi ee Afrika waxaa laga wadaa Eritrea laga wadaa Afwerki iyo kooxdiisa maadaama ay Baabal Mandab saaran yihiin Mareykanku wuxuu rabaa inuu isticmaalo Eritrea awalna wuu go'doomiyay wuu rafaadiyay wuu dhibaateeyay hadda dana ka soo gashay isagu uma soo dhawaan karo Baabal Mandab waa la gubayaa maraakiibtiisa iyo waxaan haday yimaadaan marka wuxuu rabaa Eritrea iyo Yamaniyiintan inuu qoorta isu geliyo isaguna oo cirka ka taageero haddaba marka qorshahan iyo jalaafadan Eritrea lala maagan yahay ma ogolaan doontaa si ay uga hortagto Xuutiyiinta haddaba dad badan oo arintaa falanqeeyay waxay sheegayaan in uu yahay nin caqli badan madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki wuxuu og yahay Yaman intay u jirto Eritrea Xuutiga waxa ay ku sameeyeen Israa'iil oo ka awood badan in badan Eritrea marka maxaa qoorta gelinaya Eritrea hawshan maxaa u geynay baabkan maxaa gelinaya Eritrea
marka rajo badan lagama qabaalle wuu og yahay in la isticmaalayo marka la isticmaalana la iska tuurayo one time oo kale markii Houthi laga horgeeyo hadhowna Eritrea meesheeda marka ninkan waa nin caqli badan ninka Eritrea hogaamiya haddaba markaan idin tuso warbixintan oo lagu daabacay jaridda la yiraahdo Al-Quds waxay leedahay Wall Street Journal kale leeyahay ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa wuxuu qoray in markaa iskoorimaadiyada xiritaanka Xuutiyiinta ay doonayaan inay xiraan Bab al-Mandab ay markaa socoto macnaha qorshayaasha ay ku xirayaan Xuutiyiinta Bab al-Mandab sidii looga hortagi lahaa ayaa socda Washington waxay markan sii deynaysaa Kuuriyada Waqooyi ee Afrika oo ay ka saarayso go'doonka ay gelisay Kuuriyada Waqooyi ee Afrika u baxsadeen Mareykanka waxa qoraa waa journalkii Mareykanka Wall Street Journal way ku baashaalayaan waxay rabaan inay kugu sameeyaan berito ku isticmaalayaan beritana cidda igu salaana lagu leeyahay halkaas lagu kala wad adiga iyo Houthi aadristiin qoorta lagu galiyay jugta iska galiyay waa marka maato dhan marka halkaas marka Eritrea waxa leeyahay aqligeedu wuu sareeyaa marka hawshaasi halkaas ay maraysaa dhanka kale Trump ayaa wuxuu u hanjabayaa doomaha yaryar ee loo bixiyay kaneecada badda zawaariq Iiraaniya leeyahay al-Ba'uda ay dhahan carabtu u bixiyeen oo maartay adduunka dhan looga bixiyaa marka doomaha yaryar ee qoryaha iyo madaafiicda xambaarsan ee dheereeya ee badda ku jira ayuu maartay u hanjabay wuxuu leeyahay fariimaan soo gaaray ama xogo doomahan meelaha wareeganaya miinooyin cusub ay dhigooyaan Hormuz miinooyin cusub ayay Hormuz dhigayaan marka kulaha xabad joojinta meela iska dhigaynaa haddaan aragno doomahan yaryar ee meelaha socda ee Iiraan leedahay iyagoo miinooyin gelinaya dhulka oo badda gelinaya hore uga bilaabayna kulaha Iiraan waxa leedahay horta doon maxaa soo gaaray soo marade horta doomaha meel amniga ku feesteenayaan ay xoreysteen meel ay drones iyo gantaal u xoreeyeen ayay doomahan yaryar ku carcararayaan al-Ba'uda leeyahay kaneecada badda meeshaas ku feesteenaysa haddaba markaan idin tuso warkan Trump ka soo baxay waxa leeyahay Trump wuxuu soo saaray awaamir uu leeyahay rasaas ha lagu rido doon kasta oo yar oo beeraysa miino Hormuz ku beeraysa marka ciidankayga waa amrule amarasi amarkaas muxuu yahay doomaha yaryar ee kaneecada meesha socda midii ayadoo wax beeraysa la arko hala toogtule hala lagu dhufto rasaas ha lagu furo marka taasna marka waxa leeyahay waxay horseedi doontaa mushkilad kale oo weyn oo marka xabad joojintii marka way burburi doontaa marka majlisu shuuragooda ninka hogaaminaya ayaa wuxuu sheegay lacagtii waa bilaabatay shirkadihii waxay ku baryootamayaan Iiraan ay markabka muhiim u noo yahay hal mar ha noo maray noo daa lacagtii waxay ku soo dhacaysaa oo ay ku bilaabatay bangiga dhexe ee dawladda shirkadaha ku soo shubayaan si ay u maraan Hormuz laakiin mushkiladda meesha taagan waxay yiraahdeen Mareykanka ay ka cilaa Mareykanka soo tuuidi yiri Iiraan cidii lacag siisa anigana waa qabanaya war annaga iskala xaltamayna adima number si kartaan xisaabtaada ma qaadan kartaa ha xisaabtooda waa loo shubay xisaabtii ugu horreysay loo shubay iyaguna maraakiibtii ugu horreysay deynayaan saacadaha soo socota shirkadaha muhiimka waliba Yuruba iskala leey xoogooda Mareykan annaga iskala macaamilayna adima loo deyn kartaa marka arida tuso wararkii ugu dambeeyay arika laga qoray waxa leeyahay mas'uul sare oo Iiraan ka tirsan ayaa yiri Tehran waxay bilowday inay qaadato lacagaheedii cashuurta ahaa cidii soo maraysa marin biyoodka Hormuz inay ka qaado haddaba ku-xigeenka ninka ku-xiga leeyahay majlisu shura al-Iirani ninka ku-xigeenka u ah golahooda macnaha baarlamaanka camal ninka ku-xigeenka u ah waxa leeyahay Hamid Rida Haji Babani ayaa qamiista maanta sheegay in lacagii ugu horeeyay ee laga qaado maraakiibta shirkadaha iskale ee maraysa Hormuz ay hadda Iiraan heshay
wakaaladda tasniim ayaa sheegtay ninkan ku-xigeenka golaha shuurada ah inuu maaragtay hormus ay ka bilaabatay xisaabaadkaas oo lagu soo shubayo bangiga dhexe ee dowladda iiraan marka waxay leedahay xisaab fiican ninkii bixiyo waa gudbaya oo aan cadowga ahayn laakiin cadowga kii ah kaas waa ma ku jiro lacag kasta hadduu keeno waa la garaacayaa marka qodobkaa isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa qodobka kale ee muhiimka ee barnaamijka aanu kusoo qaadanayno labaad maanta wuxuu yahay xisbullah waxay yidhaahdeen waxaan soo ridnay diyaarad ay leedahay israa'iil diyaaraddan waxay yidhahdeen waa diyaarad daroon ah oo ku xadgudubtay xabad joojinta iyo wixii la sheegayay waxaan sidoo kale garaacnay meel ay ciidanka israa'iil joogeen iyaguba saakay waxbay sameeyeen ayaguna marka waa laga aaray marka weeraradan culus iyo diyaaraddan la iska soo ridayo goormee dhacayaan xilli saacado kadib loo ballansan yahay washington lubnaan iyo israa'iil inay ku shiraan lubnaanta shiraysa xisbullaahi ma ah horaan idinkugu sheegay lubnaan kale waxaan meeshaan ciyaarta meeshaa ka socota shaqo ku lahayd iyo israa'iil yaa meesha ku shiraay marka maxaa ka soo bixi kara marka waxa ka soo bixi kara bale nimankii goobta ka dagaalamayay waa ridayaan diyaaradan soo ridnay ciidan aan jugta ka gelinay leeyihin haddaba wararkaas waxaa laga qoray warbixintan xisbullah waxay sheegtay inay soo riday diyaarad daroona oo israa'iil ay leedahay oo dul maraysay koonfurta lubnaan xisbullah waxay sheegeen in diyaaradan oo ahayd nooca istidlaaca ama waxbasaasta oo ciidanka israa'iil ay leeyihiin ay ku soo rideen meesha la yidhaahdo majdal zone oo ku yaala koonfurta lubnaan marka iyaduna halkaas hawshaasaa ka socota wararkaasu waa kuwii ugu waaweynaa ee soo dhacay qadar xayeysiisa kadib waxaanu u gudbaynaa intaan ku jirnay wixii wara oo yimid ayaynu mid iyo labo waxaynu ka gaarno idiin soo gudbinaynaa ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casriya online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markasu daaru taqwa waxaa kugu baraya qur-aanka hab casriya online ah maadooyinkaad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka higaada luqada carabiga iyo culumta shareecada isdiiwaangelintu ay socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadin dugsiga markasu daaru taqwa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena labaad maanta oo khamiisa haddaba wararka soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay waxaa ka mid ah maraykanku waxay faafiyeen video kooban oo ay leeyihiin waxaynu ku qabanay markab shidaal u waday iiraan macnaha markab shidaal saaran yaha oo iiraan ay lahayd ayaan qabanay marka iyagoo markabka baaraya iyo waxaas video ah ayaan soo daynay leeyihiin dhanka kale dekada la yidhaahdo bandar cabbaas ayaa loo sii dhaadhiciyey gudaha iiraana la geeyey labadii markab ee shalay iiraan ay qabatay markii hore meel sokaa la geeyay laakiin hadda dekad la yidhaahdo bandar cabbaas ayay iiraan iyaduna usii gudbisay halkaasaa loo sii dhaadhaciyay macnaha sheelamoorta loogu tuuro waa meesha xabsiga ah laba qayb uu leeyahay qayb hore oo dadka lagu xiro iyo qayb kuwa dhibka badan loo sii gudbiyaa jirta oo rafaada oo dhib badan sheelamoorta yidhahdaan soomaalida xabsiga xamar loo yaqaana marka sheelamoortadiyaa loo dhaadhiciyey labadii markab markaa shalay la qabtay marka maraakiibta la iska qabanayo hanjabaada wixii oo dhan weli way socdaan xabad joojintii aan waqtigeeda la garanaynin trump uu ku dhawaaqay iyaduna uu ku daray way iska socotaa wadahadaladii iyo dadaaladoodii iyo sidii la isugu iman lahaa weli way socdaan laakiin wax kasoo naasa caddaaday ilaa hadda ma jiraan barnaamijkiina waa naga intaan mar kale kulmayno like gareey oo share gareey barnaamijka haddaad cusub tahayna subscribe-ka ka iloobin youtube